Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka risaalo saakeedin heese dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn faahfaahin kasoo baxaysa dagaal al-shabaab iyo ciidamada amisom ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland oo xalay lagu qabtay garowe madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inuu wada shaqeyn la yeelan doono maamul goboleedyada dalka madaxda dowlada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta shir gaar ah ku yeelanaya garowe senator cabdiraxmaan faroole oo ka digay khilaaf soo kala dhexgala aqalka sare iyo xukuumadda soomaaliya khasaare ka dhashay qarax xalay ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo madaxweyne trump oo looga adkaaday khilaafkii ka taagnaa dhismaha derbiga mexico subax wanaagsan dhegeystayaal intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada risaale ugu waaweyn u diyaargarooba dhegeystayaal markan warkii oo intaas ka faahfaahsan waryaheena maxamed cabdi ayaa soo saaray warka subaxnimo taariikhdan waxay ku beegan tahay 27 bisha koowaad sanadka 2019 aynu ku bilaabanay faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa dagaal al-shabaab iyo ciidamada amisom ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya warkan faahfaahino dheeraada ah ayaa waxay kasoo baxayaan weerar dhabagal ah oo dagaalyameesha al-shabaab ay ku qaadeen koloyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom kuwaas oo kusii jeeday degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidankan ayaa watay gaadiid ay leeyihiin ciidanka amisom waxaana weerar ku qabsaday deegaano ku yaala gobolka shabeellaha dhexe sida deegaanka fiidow sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada maxaas ciidankan ayaa ka baxay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waana ciidanka dowladda burundi ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom iyadoo ay uheliyeen koloyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka caawinayay in gaadiidka ciidanka amisom ee laga soo dejiyey garoonka magaalada jowhar la gaarsiiyo degmada maxaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka burundi dagaalyahanada al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro kusoo qaaday ciidanka wadada ku safrayay waxaana taas ay sababtay in ciidamada ay joojiyaan socdaalkooda islamarkaana ay difaac ka galaan deegaanka fiidow oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe rasaas goosgoosa ayaa la sheegay in saacado badan ay ka socotay deegaanka fiidow iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo ku teesan wadada ka baxday jowhar ee aada degmada maxaas waxaana ay iswadaarsadeen rasaasta qaybahooda kala duwan iyadoo jiro khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac oo dagaalkaasi ka dhashay inkastoo weli labada dhinac aysan xaqiijin hayeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidanka ku sugan fiidow uu soo gaaray gurmud xoog badan oo ka yimid dhanka gobolka hiiraan kuwaas oo isugu jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka hiil walaal ee dowladda jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom al-shabaab ayaa inta badan looga bartay in weeraro dhabagala ay ku qaadaan ciidamada amisom xilliyada ay ku safrayaan wadooyinka waxaana inta badan xilliyada ay qabsadaan dagaalada ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay difaacyo ka samaystaan goobaha ay marayaan kadibna waxaa halkaasi ugu yimaado gurmad munaasabada xaflada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland saciid dani ayaa xalay lagu qabtay magaalada garowe dhinaca kalena madaxweyne farmaajo oo goobta ka hadla ayaa sheegay inuu wada shaqeyn la yeelan doono maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya warkan munaasabada oo si weyn loo sugaya ayaa xalay waxay ka qabsoontay magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana ka qayb galay madaxweynayaashii xilalka isaga kala dambeeyey 10kii sane ee ugu dambeeyey siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hoggaan dhaqan qeybaha kala duwan ee bulshada wakiilo caalami ah iyo golayaasha dowladda iyo golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Soomaaliya dadka oo aad u fara badnaa ayaa sababtay in dadka qaar ay caburmaan isla markaana xaalad caafimaad dartood looga saaro howlka oo ay ka socotay munaasabada waxaana sidoo kale jiray dad fara badan oo martida ka mid ah kuwaas oo iyagoo taagtaagan muuqaalada ay qabanayeen taasoo keentay in kooxda maamuuska iyo duqooyda dhaqanka ay ku baaqaan in dadka ka soo jeeda Puntland ay kuraasta u baneeyaan qeybaha kale ee martida ku ah magaalada Garowe si munaasabada ay u hagaagto
munaasabadda ayaa la guda galay waxaana hadallada la siiyey dadka martida ah ee loo qorsheeyey in khudbadaha ay halkaasi ka jeediyaan. islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ah duqooyda dhaqanka ee puntland ayaa munaasabadda marka ujeedadeeda uu ka hadlay kadib waxa uu soo hadal qaaday khilaafka u dhexeeya madaxdii ku sugneyd magaalada Garowe gaar ahaan howlka lagu caleema saarayay madaxweynaha iyo ku-xigeenka puntland isaga oo ku baaqay in la dhammeeyo wixii dhacayna laga noqdo xalay dhalay. kullay umad badan baa caawa meeshaan isugu timi in istaqaaniya inaan isaqoon in wada hadashay iyo inaan wada hadlin in isku faraxsan iyo inaan haynba caawa marka garbaan ku gelayaa meeshaan anaana guddoominaya annagu haddaanu reer koonfureedow xagga idinka soo xigno oo aad reer barina tidhaahdaani niman reer muduga wax la yidhaahdo waxbaanu kala harayo waxay kelmaddaasi tahay war wax dhacayba xala dhalay aynu ka ahaano marka caawa madashaan waa lagu dhan yahay guddoonka dhaqananaa caawa halakan ka odhanayo guddoonka siyaasadeed ninkii le wuxuu odhanayo isagay u taalla garta aan caawa halkaan ku gelayaa waxay tahay inta maqan xataa siyaasiyiinta anaa wakiilka ah caawa inta dadweynaha oo soomaaliyana anaa wakiilka ah oo shibilka ah inteedna caawa madasha joogta salaaddii waxaynu meeshaan kaga tegaynaa ama caawa kaga dheelmanayna wax dhacayba xala dhalay aynu ka ahaano. mas-uuliyiinta munaasabadda hadallada ka jeedinaya ayaa badankood sida laga filayay waxa ay xoogga saareen ismaandhaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex taagan Soomaaliya. senator cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxa uu soo hadal qaaday khilaafka u dhexeeya xubnaha mucaaradka ku ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda isaga oo ku baaqay in wada hadal laga sameeyo khilaafkaas oo uu sheegay in magaalada Garowe oo lagu wada sugan yahay ay gogol nabadeed dhigayaan isla markaana ay ku dadaali doonaan sida loo dhameyn lahaa ismaandhaafka siyaasadeed ee mas-uuliyiinta dowladda iyo xubnaha ku jira golaha shacabka ama guud ahaan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda. khilaafyada qolooyinka kale oo hadda mucaaradka golaha shacab ku jira qaarkood haddeer halkan joogaan qaarna ayaan ku jirin maanta waxaa meesha loo yimi waxaan anigu isleeyahay niyasami baa jirtee war ha laga faa'iidaysto ha laysu soo noqdo hadda masaabax baan maqlaayay masaabaxu niyada ha loo daadejiyo oo ha lays masaabaxo oo arrinta ha la galo oo aan ka odayayno annagu diyaar baanba unahay inaan ka odayayno oo gogasha halkaanba dhigaynaaba laftigeedaba halkan waxaan u maleeyahay xoogaa waa lagu nafisi karaayo sida xamar uma dhaxanya badna dhaxanyadu waa ku yaryaryihiin meelaha aan ku arkayo inka waxbaa dhaxanya yaaliin laakiin inta kale dhaxanya badni ma yaalin marka taasna waxaan rajaynayaa in loo howlgalo fara isku taagtaag wax ma taro khilaaf adduunkana waa jiraa khilaaf siyaasiya laakiin dariiq loo maruu leeyahay waa axsaab baa isqabata waa laysu amar ku taaglayaa tanaasulka ah laysu yimaado qolada dhallinyarada oo siyaasiyiintana waxaan leeyahay qaylada yareeya rag waaweyn baa joogay annaga muxuu ahay nagu soo xirno ya qaylo wax ma tarto rationality baa la rabaa idinku majority badan baa u baahan tihiin u kaadsha xasaabta suga adduunka ha isu yimaado. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo la hadal hayay inuu jeedin doono mid ka mid ah khudbadaha ugu kulul waxa uu halkaasi ka hadlay isaga oo marka hore hambalyo u diray mas-uuliyiinta la caleema saarayay dhanka kale waxa uu si kooban uga hadlay xaaladda taagan dhinaca khilaafka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana uu sheegay in dhinacyada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada mid kasta uu qaato mas-uuliyaddiisa isagoo uu ugu baaqay in madaxda hadda shaqaynaysa heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay taariikhda xusi doonto qof kastaana waxa uu ka shaqeeyo uu la imaan doono biri miiska. dowladda federaalkii waxay leedahay in lagu ixtiraamo shaqada ay leedahay mas-uuliyadda ay leedahay waalidnimada ay leedahay inay tahay Soomaaliya cidda matalaadda dhabta ah ku leh dowlad goboleedyadana waxaa lagu leeyahay inta iyagu ay xukumaan mas-uuliyadda ka saaran in iyagana ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna kula xisaabtamayo ilaa ninka tuulada joogay qof walba mas-uuliyaddu inbay gaaraysaa aabbaha guriga joogay mas-uuliyadda qayb buu ka qaadanaya waxaan aada u soo dhawaynayaa in aan garanno isku duubnideennu waxa inoo tarayso inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaadqaadayo waxa uu dhalin karayo natiijada uu keeni karayo waxaa sheegaya loo baahan yahayna waxay tahay inaan isu nimaadno iscalool xaadhanno
wax isweydiino shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha haddaan la helin xisaabtan iyo waxaan muxuu waxaanu ku khaldamay ama muxuu sidan ku yahay wax badan baa inaga halaabay sida dad badan ay hadal hayeen khudbadaha mas-uuliyiinta marka laga reebo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda la caleema saarayo madaxda kale ee ka qayb galaysa waxaa laga filayay khudbado duraya dowladda dhexe ee Soomaaliya laakiin warar soo baxaya waxay sheegayeen in mas-uuliyiinta Puntland ay dalbadeen madaxda ka qayb galaysa caleema saarkaas in khudbadahooda ay qaboojiyaan isla markaana ay ku ekaadaan oo kaliya ujeedka munaasabada halkaasi loo joogo sida uu madasha ka sheegay Shariif Sheekh Axmed oo doonayay inuu ka hadlo xaaladda xilligan ka taagan dalka laakiin waxa uu si kaftana u soo qaatay sheeko uu sheegay inuu kula kulmay magaalada Nairobi madaxweynaha waa ila ballayay marka inaan hambalyo ku istaago haddana waxaan u maleynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyay waxaan arkaya dad badan oo dardaaran dhiibaya haddii ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga i qabo doono iyo marka waxaan rabaa madaxweynaha dardaarankiisa inaan tixgeliyo fariin laysoo dhiibana aan dhiibo madaxweyne intaas oo ogoshaa sooma allah yibaarik fiik iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo meeshii dad badan isugu tagay maxaa sheegi doontaan oo isle maqaayadan galo waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray ya caraweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya caraweelo kafeeya waxaa u shuban maxaa la dhihi jiray kubadshino odaguna waxaa u shuban shaay cadaysa oo maxaa la dhihi jiray danguis ma la dhihi jiray shaay caana leh marka waxaan ku yiri war haye bal warrama oo waxay yiraahdeen waa fiican halkaan aan joognaa waxaan rabnaa dalkeena u laabano bariyahan halkaan aan joognay waxaan ku yiri anna dalkii aan u socdaa waxay dhahan fariin aan ku dhiibaynaa waxay ugu yiraahdeen fariinta meesha u socoto Garowe la yiraahday oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir la isugu yimaado lagu kala tago waxa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku yiraahday suuragali weyso Soomaali waa dhib badan tahay waxay yiraahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaano waxay isdhahanayeen sheegin dadka khudbadahooda aad loo sugayay lana filayay inay madasha ka hadlaan waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir laakiin ka hor inta aan munaasabada bilaaban warar soo baxay waxa ay sheegayaan in madaxtooyada Soomaaliya ay codsatay in wax hadal ah uusan ka jeedin madasha taasoo markii dambe hogaanka Puntland ay ka codsadeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur wax khudbada inuusan ka jeedin munaasabada sabab la xiriira dalabka ka yimid madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in uu marka hore aqbalayo soo jeedinta Islaan Ciise oo ahayd in wax kasta xalay dhale laga noqoyo isla markaana la xalliyo khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isaga oo ballan qaaday madaxweynaha in wada shaqayn wanaagsan uu la yeelan doono madaxda maamul goboleedyada anigu kullayba waxaan leeyahay hadalkayaan kusoo koobayaa Islaan Ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdama aan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowladda shisheeye uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisayo weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku yidhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna magaalada Garowe oo hadda ay ku wada sugan yihiin hogaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa maanta la filayaa in ay ku wada kulmaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana shir gaar ah oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya uu ka dhici doona magaaladaas shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa sida loo xalin lahaa tabashada ay qabaan madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kaga faa'iideysanaya madaxda ku sugan Garowe inay xaliyaan khilaafkooda maadaama muddo uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxda ku sugan Garowe ayaa sidoo kale la kulmi doona madaxda Puntland odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Puntland senator Cabdiraxmaan Faroole ayaa ka digay khilaaf soo kala dhexgala aqalka sare ee baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya warkan
senator cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka digay khilaaf iminka soo kala dhexgala aqalka sare iyo xukuumadda soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay madaxda dowladda soomaaliya inay ku dhaqmaan dastuurka dalka, aqalka sarena uu yahay xukuumadda dowladda dhexe ku matasha maamul goboleedyada, sidoo kalena la siiyo aqalka sare mudnaanta uu siiyey dastuurka dalka u yaala. sidoo kale waxa uu sheegay in marar badan ay dhaceen khilaafyo soo kala dhexgalay aqalka sare iyo xukuumadda, golaha shacabka iyo aqalka sare, balse iminka la doonaynin inay soo laabtaan khilaafyada noocaas ah. madaxda hadda joogta waxaan u sheegayaa dastuurka siday ugu qoran tahay ha loogu dhaqo oo madaxweyne farmaajo hogaaminayo. aqalkaas sare waa xukuumadda matasha dowlad goboleedyada. khilaafiyaa jira, dowladda dhexe waa ku jiraa dhexdeeda, marar badan baa la isqabtay iyo golayaasha qaarkood aqalka muxuahay shacabka, laakiin ma rajaynayno insha allahu tacaala inuu khilaaf soo dhex galo aqalka sare iyo xukuumadda dhexe oo federaalka inuu soo dhex galo ma jecelin, mana rajaynayno, ha laga taxadaro. dhan kale senator cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole madaxweynihii hore ee puntland ayaa waxa uu dalbaday in madaxda dowladda soomaaliya ay dib u furaan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan. sidoo kale maamulka somalilan ayuu ka dalbaday inay ciidamadooda jooga deegaanka tukaraq ee gobolka sool ay dib ugu celiyaan si wadahadalada somalilan iyo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dib loogu furo. wadahadalkii hala furo, somalilan hala furo, diyaar bay u yihiin, waa codsanayeen. xoogaagan tukaraq halakan isku tuurtuuray iyadaa xoogaa caqabad u noqotay. waxaan abiil u samaynayaa dowladda somalilan inay arrinta ku celiso meeshii awal ay joogtay si wada hadalkii loo furo oo ay isaga tagto tukaraq oo golaheeda ku noqoto ciidamada ka saabtay. baan mar kale abiil ku celinayaa 10kii bishii January baan taas sameeyey. markaasna dowladda dhexe madaxweynuhu aawa markuu hadalkiisa qaaday waa inuu ballan qaadaa. meesha waa lagu dhan yahay, madaxweynayaal hore iyo madaxweynayaal soo socda iyo kuwa hadda ah iyo kulli waa lagu dhan yahay iyo beesha ajnabi. halkaasna qolooyin hadda danaynaya waa jiraan oo waxaa laygu yidhi dowladda turkiga ayaa waxay u xil saartay safiirkii bakar la oran jiray inuu dhexdhexaadiyo ha la ajiibo. idinka qolaasna yay rajo dhigin, waxuun baa lagu heshiin doonaa, wixii dan laga noqoto baa lagu heshiin doonaa, waana laga wada qaybgeli doonaa. kaasi wuxuu ahaa senator cabdiraxmaan faroole, wuxuuna u dambeeyey warkii waryaheena cali xasan uu ku eegayey. ugu dambeynna dhegeystayaal, ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhaawacantay qarax xalay fiidkii ka dhacay banaanka maqaayad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhashay waxyaabaha qaraxa oo la dhigay banaanka maqaayada Tom Mamboya ee ku taala wadada Latema Road. booliiska ayaa goobta si degdeg ah u gaaray iyadoona ay xireen goobaha soo wadada gaasha maqaayada. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen inay arkayeen in alaabo lagu sii riixayay gaari lagu qaado waxyaabaha caadiga, waxayna sheegeen inay uga shakiyeen waxyaabahaasi inay ahaayeen waxyaabaha qaraxa. 15kii bishan ayay ahayd markii qaraxi iyo weerar toos ah lagu qaaday hotelka Dusi D2 ee magaalada Nairobi. weerarkaas oo lagu dilay 20 ruux iyadoona weerarkaas ay sheegatay ururka al-shabaab. guud ahaana dhageystayaal warkii subaxnimo saaka waa naga intaa. ciduu seegaa dib waxuu kaga heli karaa webpage-kan internetka ku leenahay ee ciwaankeenu yahay radio-risala.com.